midii rawan kuugu daraya arrinta hargeysanaan ka hadlo qoodha iyo xerada iga wareeg idaaf arrinta hargeysaan ka hadlaya in adeero baleeg hadda horta gabadh yaroo laga waayay reerkiina joog maxay la timaadaa ma taqaan wiciliyadu caloosha kuma damay timaadaa ilmaha ayaa dhalay dee miyaan garanaya oo xaggee tagtay dee gurigii faaraxna waan joogay abti ismaaciil gurigiisiina waan tegey haye xaggee kala tagtay arooskii ina muuse bulaalana waan ka qayb galay haye xaggee kala tagtay wallaahi meelahaasoo dhammaan tegaani meel layga raacay garan maayo hargeysaay maama muqdisho la joog baa lagaa waayay soomaadan cararin adoo uurla uun ha imanin soomaadan garan runtaan kuu sheegaynaa soomaadan garan soomaaliyana midar baan kaaga sheegayaa soomaaliya malaayiin iyo malaayiin qoys noqday weeye soomaali waa mid qureeta iyo midho geed keligiiya wax kastoo aad u macaan malabkaa u wanaagsan midna maana ka fiican soomaaliyay adigaa ka macaashiya adduun waa ismaciisiya isku mawqif ahaada soomaaliya annagu waxaanu aaminsannahay qoys tarma inay tahay oo malaayiin noqday eeg hargeysa waxay baan kuu sheegayaa in horta aad xanuunsanaysaan kuu sheegay madaxa ka jiran tahay South Africa wixii ka dhacay qoodha iyo xirada South Africa wixii ka dhacay hargeysa miyuu ka dhacay wixii South Africa ka dhacay runtaan kuu sheegaynaa maxaa ka dhacay South Africa ma taqaan hoteelada cadaanka midowga hadday galaan xabadda lagu dhufan jiray runtaan kuu sheegaynaa hargeysa miyaa laga dhisay hoteelada reer koonfureedka oo reer waqooyigu hadday galaan la dilayo weliba haddaan diirka ka qaado oon faraha uuska la galo hoteelada daaroodka oo hadday isaaqu galaan la dilo miyaa laga dhisay hargeysa miyaa laga dhisay maya maxaad haddaba kolba dayuurad meel u saaraysaa midda kale daarinaan laguu qarinayn baaba jirto oo laguu sheegaya hargeysaay horta geedkaad gaadha midha ka guro baryaaba lagaa badiyey muqdisho waxay leedahay laba webi jubba iyo maxaan ku dhaha iyo ilaahoodan caqliga beenle iyo waxay leedahay webiga leeyahay shabeelle agriculture-kana mar ardadii ka qali jirisay waxaa loo dhigi jiray 82% of Somali soil is suitable for agriculture waa 82% 18% yaan ku habboonayn beerasho 18% yana adigaa iskale oo waa dhulkaaga Somaliland buuraha iyo dhagaxa qallalan Soomaad garan hargeysa cagaha dhigtay midda kale de midba lagu sheegayaaba waa aan dhaweyn hadalka dhaca la dhageystayo Soomaalidu dhamaan la kafaartayo meel baa la dhigay ee taariikhda dhugo marsigana baldhow runtaan kuu sheegaynaa hadalkaasi muxuu ahaa hadalka annaga kuu sheegaynaa waan kugu cadaynaynaa hargeysa dhaka xumayde Ethiopia walaaladayo cadawga iyaga Soomaaliya ruuxiisa adiga maahay hargeysa meena lagu maqlay baad mooday Soomaad garan runtaan kuu sheegaynaa Soomaad garan waxa weeye haddaba waxaan inta ku darayaa maxaa samaysa ma taqaan koonfur haddii muqdisho ruux ka tago hargeysa tago wallaahi been ma sheegayo hadda walla magaca ilaahay baa la yidhaah waa la daba dhawaaqaa marka loo gartay inuu koonfur yahay oo muqdishaawi yahay baa la daba dhawaaqaa hargeysa weli maanan arag ruux hargeysa ka yimid oo muqdisho jooga oo la daba dhawaaqayo cunsuriyad loo daba dhawaaqayo wallaahi inaana arag weligeedna ayna dhicin dadka reer waqooyiga ama reer hargeysa madaxa la saaraa muqdisho markay joogaan dadka reer koonfureedka markay hargeysa tagaana la dhacdaan alla waa gudhuudii waa daba dhawaaqdaan ceeb cunsuriyad wariyaa runta la idin ma sheegin nimayo geedkaad gaadhaan marka midna waan idin sheegayaa maxaa la ilaahaniyo dadkani waa mutacallimiin wallaahi dhamaantii la eeg runta ku sheegayaa eeg ma muqdisho on ku aqoonsanin ba caalamku aqoonsan karaa إيش بلعت كوا خذ مين أنك هذا حسن الله فرياد نودي الدون كلنا عدو بنقولها سودا يا دنيا سومالي عدو بيكوتاي مرة هلا الله وضع قوس الله سير تصبح قوي جيت كاد قاعد دم لك برا تبغى شيء جاي لك وين سوما ذكر وين طبعا كوكو دريات هول كلا كتير كم مقالة المقدسة وعاصمة دي أورطة فدرال كصوماليا بريجان يرابا وحل أورنجري بلاك هذا ديك وينو وحل أورنجري دواء عند دكتور كوغورين عورن صوماليا اللغين إيسا وقرن كده ناس صوماليا اللغين إياه أيه دواء دول كهلاي ويقاتل ويبلغين با دواء ما تقال فدراليسم باليدا فدرالي صوماليا هشكنين كي فدراليسم كا أو ده يالله إسكا قالتو ويلغضي markaas caloosh laga qabtay waa Soomaaliya caloosh laga hayo Soomaad garanin eeg aniga hadda waxa jira abwaanirana leeyahay magacayga waxa lagu sameystay Facebook ya lagu sameystay runta ku sheegaya naqshadaha waa la kala xadaa naqshada ganacsiga la kala xadaa naqshada abwaanimada in la kala xadaa la isku dayaa waxa la kala xadaa waxyaabo badan baa la kala xadaa imka gaari waxa jira Hammer leeyahay Mareykan baa sameeyay Hammer $1 million buu ahaa شينيسكا قطي نقشدي بأيجان ويسوي سمايين ولا قطع
hamarkii halka yaa $1 milyan iyo soo garab dhigan mid kale oo xagga quality-ga the same ma ay yiraahdeen iyaguna $100,000 yay yiraahdeen $100,000 bay soo garab dhigeen $1 milyan naqshada la kala xaday marka idaadi iyo igu daadi iyo Soomaad garanay hada burcad meel walba gashay burcad jaamacadeed baa jira bal daymanka gabadh baa ayaa noo timid waxa tinoo jaamacada dhigtaa meesha ma tagnaa sheekay yar ma naloo qabtay wax yar baa la xariiq waan iska soo tagnaa fiigi keenun baa nala yiraahdaa waa burcad jaamacadeed Soomaad garanay baleeg hadda ku yar baa ayaa dhaweyd ana abtiwaay baa miyiga ka yimid ka yar wala yaqra wala yaktub telefoon buu ii soo diray abtiyow xagee joogtaa baan nidhi wuxuu yiri waxaan joogaa jaamacadii ka yar dugsi hoose ma dhigan dugsi dhexe ma dhigan dugsi sare ma dhigan oo jaamacadda maxaad ka qabanaysaa waan dhiganayaa ha bariyaal liya oo waan dhiganayaa maxaad ka wadaa jaamacadda horta halkaas ku dambeysay nimaan dugsi hoose dhigan oo dugsi sare dhigan oo dugsi aan dhigan oo dugsi dhexe dhigan baa kula jaamacadii baan joogaa wariyaa anigu day waxaan dhigtay 4 sano dugsi hoose 4 sano oo dugsi dhexe aan dhigtay waxaan dhigtay 4 sano dugsi sare 2 sano oo gurmadaan liqay 2 sano oo gurmada ardadii waxaan ku jiray anigu ducaysana wiilkayow anoo dayar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo waligay dalliciniyo dablaan kugu soo korsho qaykay wuxuu duunya yeeshay maxamuud kaala isma ragii lagu furay baan anigu ahaa haddaba Soomaad garan waxa weeyaan waxbarashada halkaas ay maraysaa Soomaad garan marka de fanku wuxuu lahaan jiray isagana fanka aan kaaga warramay xeer buu lahaan jiray guddi baa la soo marin jiray war wixii waa tusbax go'ay iminka day ilaahay baa kugu dhaarshay eeg educational campus wax la yiraahdo jiray goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga goobaha qaadka goobaha cuntada day hadda waxa dhacay ma taqaan meel dhoodaan hudheel galay maanu iska fadhiisanay waxaan wada soo walaalo laba bariisa iyo laba baasta filetri bas okay markaas la war waxa ka baxay semester keenida qornaada la semester keenida qornaa bal daarintaa meeshii aanu ka maqnayn baa jaamacad laga dhigay hudheelkii cuntada yaa jaamacad laga dhigay Soomaad garan arintaas ariyadana aad uga yaabnay wuxuu dadku bariga hore waa la kala soconaa hadda kulli waa la isku wada jiraa Soomaad garan farmasiga baad eegay farmasi baad gali waad ka bixi masaajid baad gali waad ka bixi hudheel baad gali waad ka bixi jaamacad baad gali waad ka bixi garish baad gali waad ka bixi bal eeg lama kala soconaa janta fagax midda kala day Soomaalida maanta qof waliba wuxuu ana wax saxaya hadal badan iyo hawl yar meel dhegan baabur raacnay nin baa walaalo waxaad yeelaysaa waanu daahnay soco gabadh baa soo bado waxay tiri walaalo ha soconine jagjag iyo wadada ma fiicnaa walaalo tartiib soco kii horena soco yiri anna waan soo bado waxaan walaalo daaqada naga xidabeel baa nagu dhacaysay kii kale wuxuu yiri walaalo waan kulul leh daaqada naga kii kale walaalo naga gaabi heesta markaas mid kale walaalo noo dheere oo taas Soomaaliyeed dakaway eeg hadda iyar baan ku gabagabaynayaa Shiinaha ma taqaanaa inta tiradiisu tahay waa 1.3 billion people. I'm talking about the population, general population. China waa 1.3 billion ama haddaan si kala u dhigo waa 1 milyan iyo 300,000 weeye hal nin baa u taliyo madaxweynaha inagu inta leegnaa ma taqaanaa inaga Soomaaliya 12 milyan bayna baarlamaanka Shiinaha waa 12 milyan hadda kaaga rooda baarlamaanka Soomaaliya isleey bari baa Shiinaha wuxuu yiri baa la wareeda wadanka yareeyay qub iyo qaacdi ka badatay soo kaxay hudheel halkan ku qorayaay xalad gacanta layna raro layna geeyo Shiinaha oo hudheel layna saaro hotel layna dajiyo waa hal hotel baynu nahay inta layna dajiyo in dalka la yar hagaajiyo kadibna layna soo raro oo layna keeno Soomaaliya garan haddaba Soomaalida waxaan sheegi lahaa wariima yahodaya dadka baleeg in la ismaqlo gobonimada ku jirta ma la socota in la ismu gunti isma maqasho goobaa la dhageysta guri ku jirta guri ku jirta la dhageysta way ismaqlayeen gabdhana way amaanayeen geel way hadal hayeen bal baa la dhageysta guri ku jirta ismayna maqlayn way buuqayeen gabdhana way caayayeen cuntana way hadal hayeen bal kaynu naayno marka gumbayna mise gob wallahi tallahi gumbayna oo maxaa ku noqonay gabdhaheena macayna media Soomaalidan arag gabdhaheena la caay niman gabdhaha caayaya ya media soo galaya wali waxa ku rabaan karaamiya sumcad iyo sharaf markaas subscribe la leeyahay share baa la leeyahay waa la qosliya gabdhaha oo Soomaaliyeed la caayo raali ka noqotay fataal baad noqonaysaa tayus ma taqaan waxa la yiraahdo waa ninka gabadhooda la caayo raali ka noqday qosla gabadh Soomaaliyeed tay doontaa noqotay wariya gabdhaha dunida ugu qiimo badan aan leenahay miyadan ogeyn dhaka weyno wallahi gabdhaha ugu sharaf badan
ugu karaam badan baa dunida ku leedahay markaasuu mid iska soo gelaya miidiyaha doonaya in la sharfo oo la karaameeyo oo la ixtiraamo oo inuu soo caanbuxo rabaa gabadh Soomaaliyeed waxaa yar midii rawan kuugu daraya arrinta Hargeysa aan ka hadlo qoodhaaya xirada iga wareey idaaf arrinta Hargeysa ka hadlaya in adeero baleeg hada horta gabadh yar oo laga waayay reerkiina joog maxay la timaadaa ma taqaan wiiliyadu caloosha ku wada ma timaadaa ilmaha yaa dhalay de miyaan garanaya waxa ka tagtay de gurigii Faaraxna waan joogay abti Ismaaciil gurigiisina waan tagay hay xagee kala tagtay arooskii ina Muuse Bulaalana waan ka qayb galay hay xagee kala tagtay wallahi meelaha soo dhamaan tagaan meel la iga raacay garan maay Hargeysay maama Muqdisho la joog baa laga waayay Soomaalian cararin adoo uur la un haymanin Soomaalian garan runtaan ku sheegaynaa Soomaalian garan Soomaaliyana midar baan kaaga sheegaya Soomaaliya malaayiin iyo malaayiin qoys noqday weeye Soomaali waa mid qureeta iyo midho geed kaligiya wax kasto aad macaan malabka wanaagsan midna maana ka fiican Soomaaliya adiga ka macaashi aduwa Ismaaciil isku mowqif ahada Soomaaliya anagu waxaan aaminsanahay qoys tarma inay tahay malaayiin noqday eeg Hargeysa waxay baan ku sheegaya in horta aad xanuunsanaysan ku sheegay madaxa ka jirin tahay South Africa wixii ka dhacay qoodha iyo xirada South Africa wixii ka dhacay Hargeysa miyuu ka dhacay wixii South Africa ka dhacay runtaan ku sheegaynaa maxaa ka dhacay South Africa ma taqaan hoteelada cadaanka midowga haday galaan xabad lagu dhufan jiray runtaan ku sheegaynaa Hargeysa miyaa laga dhisay hoteelada reer koonfureedka oo reer waqooyiga haday galaan la dilayo waliba hadaan diirka ka qaado oo faraha uuska la galo hoteelada daaroodka oo haday isaaqo galaan la dilo miyaa laga dhisay Hargeysa miyaa laga dhisay maya maxaad hadaba kolba dawlad meel u saaraysaa midda kale daarina lagu qarinayn baaba jirto lagu sheegay Hargeysa horta geedkaad gaadha midha ka guro bariyaaba laga badiyay Muqdisho waxay leedahay laba wadi jubba iyo maxaan ku dhahay ilaahay wadin aqliga beenle iyo waxay leedahay wadiga Shabeelle agriculture kana bar ardadii ka qali jibisay waxa loo dhigi jiray 82% of Somali soil is suitable for agriculture wa 82% 18% yaan ku haboonayn beerasho 18% yana adiga iskale oo waa dhulkaaga Soomaaliland buuraha iyo dhagaxa qalalan Soomaad garan Hargeysa agaha dhigtay midda kale de midda lagu sheegayaaba waa aan dhaweyn hadalka dhaca la dhageystayo Soomaalidu dhamaan dhakafaartayo meel baa la dhigay ee taariikhda dugo marsigana baldhow runtaan ku sheegaynaa hadalkaasi muxuu ahaa hadalka annaga ku sheegaynaa waan kugu cadaynaynaa Hargeysa dhaka xumayde Ethiopia walaaladayo cadawga iyaga Soomaaliya ruuxiisa adiga maay Hargeysa meena lagu maqlay baad mooday Soomaad garan runtaan ku sheegaynaa Soomaad garan waxa weeye hadaba waxaan inta ku darayaa maxaa samaysa ma taqaan koonfur haddii Muqdisho ruux ka tago Hargeysa tago wallaahi been ma sheegayo hadda walla magaca Ilaahay baa la yiraahdaa waa la daba dhawaaqaa marka loo gartay inuu koonfur yahay oo Muqdisho yahay baa la daba dhawaaqaa Hargeysa weli maanan arag ruux Hargeysa ka yimid oo Muqdisho jooga oo la daba dhawaaqayo cunsuriyad loo daba dhawaaqayo wallaahi inaana arag weligeedna ina dhicin dadka reer waqooyiga ama reer Hargeysa madaxa la saaraa Muqdisho markay joogaan dadka reer koonfureedka markay Hargeysa tagaana la dhacdaan alla waa gudhuudi waa daba dhawaaqdaan ceeb cunsuriyad wariya kunta leeyeen ma sheegin nimayo geedkaad gaadhaan marka midna waan idin sheegaya maxaa la ilaahaniyo dadkani waa mutacallimiin wallahi dhamaantii la eeg kunta ku sheegayatay eeg ma Muqdisho on ku aqoonsanba caalamku aqoonsan karaa إيش بلعت كواكوز مين أنك هذا حسن الله فرياد مودي الدون كلن عدو بنقويا سونا يا دونيدو سومالي عدو بيكوتاي مرة هلا الله وضع قوان صلاة سيري تصبح قواي جيد كاد قاعد دمنا كبرا تبون شيء جاي نكويني شو ما ذكر وين طبعا كوكو دريات هول كلا كتير تام مقالة مقدشة وعاصمة ديورة الفدرال كصوماليا بريجان يرابا وحل أورنجري بلاك هذا دك وينو وحل أورنجري دواء عند اختر كوكورنا عرن صوماليا اللقينا إسا وقرن كده الناس صوماليا اللقينا إياه أيه دواء دول كهلاي ويقاتل ويبلغين بقى دواء ما تقال فدراليسم باليدا فدرالي صوماليا هشكرين كي فدراليسم كا أو ده يالله إسكا قالتو ويلقضي markaas caloosh laga qabtay waa Soomaaliya caloosh laga hayo Soomaad garanin eeg aniga hadda waxa jira abwaanirana leeyahay magacayga waxa lagu sameystay Facebook ya lagu sameystay runta ku sheegaya naqshadaha waa la kala xadaa
naqshadaha waa naqshada ganacsiga la kala xadaa naqshada abwaanimada in la kala xadaa la isku dayaa waxa la kala xadaa waxyaabo badan baa la kala xadaa imka gaari waxa jira hammer la yiraahdo Mareykan baa sameeyay hammer $1 million buu ahaa shiinayska gatay naqshadiiba eegeen way soo sameeyeen balagada hammerkii halka yaana $1 million iyo soo garab dhigeen mid kale oo xagga quality-ga the same ma yiraahdeen iyaguna $100,000 yiraahdeen $100,000 bay soo garab dhigeen $1 million naqshada la kala xaday marka idaadi iyo igu daadi iyo Soomaad garanay hada burcad meel walba gashay burcad jaamacadeed baa jira bal daymanka gabadh baa ayaa noo timid waxa tinoo jaamacadda dhigtaa meesha ma tagnaa sheekay yar ma naloo qabtay wax yar baa la xariiqay waan iska soo tagnaa fiigi keenun baa nabiyada waa burcad jaamacadeed Soomaad garanay baleeg hadda ku yar baa ayaa dhawid ana abtuuhay baa miyiga ka yimid ka yar wala yaqra wala yaktub telefoon buu ii soo diray abtiyow xagee joogtaa baan nidhi wuxuu yiri waxaan joogaa jaamacaddii ka yar dugsi hoose ma dhigan dugsi dhexe ma dhigan dugsi sare ma dhigan oo jaamacadda maxaad ka qabanaysaa waan dhiganayaa ha bariyaal liyaa oo waan dhiganayaa maxaad ka wadaa jaamacadda horta halkaas ku dambeysay nimaan dugsi hoose dhigan oo dugsi sare dhigan oo dugsi aan dhigan oo dugsi dhexe dhigan baa kula jaamacaddii baan joogaa wariyaa anigu day waxaan dhigtay 4 sano dugsi hoose 4 sano oo dugsi dhexe aan dhigtay waxaan dhigtay 4 sano dugsi sare 2 sano oo gurmadaan liqay 2 sano oo gurmada ardadii waxaan ku jiray anigu ducaysana wiilkayow anoo dayar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo waligay dalliciniyo dablaan kugu soo korsho qaykay wuxuu duunya yeeshay maxamuud kaala isma ragii lagu furay baan anigu ahaa haddaba Soomaad garan waxa weeyaan waxbarashada halkaas ay maraysaa Soomaad garan marka de fanku wuxuu lahaan jiray isagana fanka aan kaaga warramay xeer buu lahaan jiray guddi baa la soo marin jiray war wixii waa tusbax go'ay imika day ilaahay baa ku dhaarshay eeg educational campus wax la yiraahdo jiray goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga goobaha qaadka goobaha cuntada day hadda waxa dhacay ma taqaan meel dhoodaan hudheel galay maan iska fadhiisanay waxaan wacdan walaalo laba bariisa iyo laba baasta tilaatri bas okay markaas la war waxa ka baxay semester keenida qornaada la semester keenida qornaa bal daarintaa meeshii aanu ka maqnayn baa jaamacad laga dhigay hudheelkii cuntada yaa jaamacad laga dhigay Soomaad garan arintaas ariyadana aad uga yaabnay wuxuu dadku bariga hore waa la kala soconaa hadda kulli waa la isku wada jiraa Soomaad garan farmasiga baad eegay farmasi baad gali waad ka bixi masaajid baad gali waad ka bixi hudheel baad gali waad ka bixi jaamacad baad gali waad ka bixi geesh baad gali waad ka bixi bal eeg laba kala soconaa janta fagax midda kala day Soomaalida maanta qof waliba wuxuu ana wax saxaya hadal badan iyo hawl yar meel dheedaan baabur raacnay nin baa walaalo waxaad yeelaysaa waanu daahnay soco gabadh baa soo bado waxay tiri walaalo ha soconine tag iyo wadada ma fiicnaa walaalo tartiib soco kii horena soo yiri anna waan soo bado waxaan walaalo daaqada naga xidabay baan ugu dhacaysay kii kale wuxuu yiri walaalo waan kulul leh daaqada naga kii kale yiri walaalo naga gaabi heesta markaas mid kale yiri walaalo noo dheere wata Soomaalida dhankay eeg hadda iyar baan ku gabagabaynayaa Shiinaha ma taqaan 93 tahay waa 1.3 billion people I'm talking about the population general population China waa 1.3 billion ama haddaan si kale u dhigo waa 1 milyan iyo 300,000 weeye hal nin baa u taliyo madaxweynaha inagu inta leegna ma taqaana inaga Soomaaliya 12 milyan bayna baarlamaanka Shiinaha waa 12 milyan hadda kaaga rooda baarlamaanka Soomaaliya islee bari baa Shiinaha wuxuu yiri baa la wareeda wadanka yareen qubi iyo qaacdi ka badatay soo kaxay hudheel halkan ku qorayaay ala gacanta layna raro layna geeyo Shiinaha oo hudheel layna saaro hotel layna dajiyo waa hal hotel baynu nahay inta layna dajiyo in dalka la yar hagaajiyo kadibna layna soo raro oo layna keeno Soomaaliya garan haddaba Soomaalida waxaan sheegi lahaa warima iyo hodaya dadka baleeg in la ismaqlo gobonimada ku jirta ma la socotaan in la isma gunti isma maqasho goobaa la dhageystay guri ku jirta guri ku jirta la dhageystay way ismaqlayeen gabdhana way ammaanayeen geel way hadal hayeen baa baa la dhageystay guri ku jirta ismayna maqlayn way buuqayeen gabdhana way caayayeen cuntana way hadal hayeen baa kaynu naaynagu marka gumbayna mise gob wallaahi billaahi tallaahi gumbayna oo maxaa ku noqonay gabdhaheena macayna media sameeyaan arag gabdhaheena la caay niman gabdhaha caayaya ya media soo galaya wali waxa ku rabaan karaamiya sumcad iyo sharaf
markaasaa subscribe la leeyahay share baa la leeyahay waa la wada qoslaya gabadhaha oo Soomaaliyeed oo la caayo raali ka noqotay fataal baad noqonaysaa dayuus ma taqaan waxa la yiraahdo waa ninka gabadhooda la caayo raali ka noqday qosla gabadh Soomaaliyeed tay doonta ha noqotay wariya gabdhaha dunida ugu qiimo badan aan leenahay miyaadan ogeyn dhaka weyno wallahi gabdhaha ugu sharaf badan ugu karaam badan ee dunida ku leedahay markaasuu mid iska soo galaya media doonaya in la sharfo oo la karaameeyo oo la ixtiraamo oo soo aan u raba gabadh Soomaaliyeed waxa ay midii rawan kuugu daraya arinta Hargeysa aan ka hadlo qoodhaay xirada iga wareey idaaf arinta Hargeysa ka hadlaya in adeero baleeg hada horta gabar yar oo laga waayay reerkiina joog maxay la timaadaa ma taqaan wiciliyadu caloosha ku wada timaadaa ilmaha yaa dhalay miyaan garanaya waxaa tagtay gurigii Faaraxna waan joogay abti Ismaaciil gurigiisina waan tagay hay xagee kala tagtay arooskii ina Muuse Bulaalana waan ka qayb galay hay xagee kala tagtay wallahi meelaha soo dhamaan tagaan meel laga raacay garan maay Hargeysay maama Muqdisho la joog baa laga waayay Soomaalidan cararin adoo uur la un haymanin Soomaalidan garan runtaan ku sheegaynaa Soomaalidan garan Soomaaliyana midar baan kaaga sheegaya Soomaaliya malaayiin iyo malaayiin qoys noqday weeye Soomaali waa mid qureeta iyo midho geed kaligiya wax kasto aad macaan malabka wanaagsan midna maana ka fiican Soomaaliya adiga ka macaashi adduun waa Ismaaciilsiya isku mowqif ahaada Soomaaliya anagu waxaan aaminsanahay qoys tarma inay tahay malaayiin noqday eeg Hargeysa waxay baan ku sheegaya in horta aad xanuunsanaysan ku sheegay madaxa ka jirin tahay South Africa wixii ka dhacay qoodha iyo xirada South Africa wixii ka dhacay Hargeysa miyuu ka dhacay wixii South Africa ka dhacay runtaan ku sheegaynaa ma ka dhacay South Africa ma taqaan hoteelada cadaanka madowga haday galaan xabada lagu dhufan jiray runtaan ku sheegaynaa Hargeysa miyaa laga dhisay hoteelada reer koonfureedka oo reer waqooyiga haday galaan la dilayo waliba hadaan diirka ka qaado oo faraha uuska la galo hoteelada daaroodka oo haday isaaqu galaan la dilo miyaa laga dhisay Hargeysa miyaa laga dhisay maya maxaad hadaba kolba dawlad meel saaraysa mid kale daarina lagu qarinayn baaba jirto lagu sheegay Hargeysa horta geedkaad gaadha midha ka guro bariyaa laga badiyay Muqdisho waxa leedahay laba wadi jubba iyo maxaan ku dhahay ilaahoodin aqliga beenle iyo waxa leedahay webiga leeyahay Shabeelle agriculture kana bar ardadii ka qalin jibisay waxa loo dhigi jiray 82% of Somali soil is suitable for agriculture waa 82% 18% yaan ku habboonayn beerasho 18% yana adiga iskale oo waa dhulkaaga Soomaaliland buuraha iyo dhagaxa qalalan Soomaal garan Hargeysa cagaha dhigtay mid kale mid lagu sheegayaa waa aan dhaweyn hadalka dhaca la dhageystayo Soomaalidu dhamaan la kafaartayo meel baa la dhigay ee taariikhda dhugo nafsigana baldhow kuntan ku sheegaynaa hadalkaasi muxuu ahaa hadalka annaga ku sheegaynaa waan kugu cadaynaynaa Hargeysa dhaka xumayde Ethiopia walaaladayo cadawga iyaga Soomaaliya ruuxiisa adiga maahay Hargeysa meena lagu maqlayn baad mooday Soomaal garan kuntan ku sheegaynaa Soomaal garan waxa weeye hadaba waxaan inta ku darayaa en maxaa sameeyay mataqaan koonfur hadii Muqdisho ruux ka tago Hargeysa tago wallahi been ma sheegayo hadda walla magaca Ilaahay baa la yiraahdaa walla daba dhawaaqa marka loo gartay inuu koonfur yahay oo Muqdisho yahay baa la daba dhawaaqa Hargeysa weli maanan arag ruux Hargeysa ka yimid oo Muqdisho jooga oo la daba dhawaaqayo cunsuriyad loo daba dhawaaqayo wallahi inaana arag weligeedna ina dhicin dadka reer waqooyiga ama reer Hargeysa madaxa la saaraa Muqdisho markay joogaan dadka reer koonfureedka markay Hargeysa tagaana la dhacdaan alla waa gudhuudi waa daba dhawaaqdaan ceeb cunsuriyad wariya runta la idin ma sheegin nimayo geedkaad gaadhaan marka midna waan idin sheegaya maxaa la ilaahaniyo dadkani waa mutacallimiin wallahi dhamaantii la eeg runta ku sheegayaaday eeg ma Muqdisho on ku aqoonsanida caalamku aqoonsan karaa إيش بعد كوا خذ مين أنك هذا حسن الله فرياد نودي الدون كلن عدو بنقويا سونا يا دوني سومالي عدو بيكوتاي مرة هلا الله وضع قوان صلاة سير تصبح قوي جيت كاد قاعد دم لك برا تبون شيء جاي نكويني سوما ذكرنا وين طبعا كوجو دريات هول كلا كتير مقالة المقدسة وعاصمة دي أورطة فدرال كصوماليا بريجان يرابا وحل أورنجري بلاك هذا دك وينو وحل أورنجري دواء عند دكتور كوغورين عورن صوماليا اللغين إيسا وقرن كده الناس صوماليا اللغين إياه أيه دواء دول كهلا ويقاتن ويبلغ قيمة دواء ما تقال فدراليسم بالليدا
federaali Soomaaliya hesha kiniinkii federalismka oo wadada yaalo iska qaadato way liqday markaas calooshii laga qabtay waa Soomaaliya caloosha laga hayo Soomaad garanin eeg aniga hadda waxa jira abwaanirana la yiraahdo magacayga waxa lagu sameystay Facebook yaa lagu sameystay runtaan ku sheegaya naqshadaha waa la kala xadaa naqshada ganacsiga la kala xadaa naqshada abwaanimada in la kala xadaa la isku dayaa waxa la kala xadaa waxyaabo badan baa la kala xadaa imka gaari waxa jira Hammer la yiraahdo Mareykan baa sameeyay Hammer $1 million buu ahaa Shiinayska gatay naqshadiiba eegeen oo soo sameeyeen balagada Hammerkii halka yaano $1 million iyo soo garab dhigan mid kale oo xagga quality-ga the same ma yiraahdeen iyaguna $100,000 yiraahdeen $100,000 bay soo garab dhigan $1 milyan naqshada la kala xaday marka idaadi iyo igu daadi iyo Soomaad garanin hada burcad meel walba gashay burcad jaamacadeed baa jira bal daymanka gabadh baa ayaa noo timid waxa tinoo jaamacada dhigtaa meesha ma tagnaa sheekay yar ma naloo qabtay wax yar baa la xariiq waan iska soo tagnaa fiigi keenun baa nabiilah waa burcad jaamacadeed Soomaad garan baleeg hadda ku yar baa ayaa dhaweyd ana abtuwahay baa miyiga ka yimid ka yar wala yaqra wala yaktub telefoon buu ii soo diray abtiyow xagee joogtaa baan nidhi wuxuu waxaan joogaa jaamacadii ka yar dugsi hoose ma dhigan dugsi dhexe ma dhigan dugsi sare ma dhigan oo jaamacadda maxaad ka qabanaysaa waan dhiganayaa ha bariyaal liyaa oo waan dhiganayaa maxaad ka wadaa jaamacadda horta halkaas ku dambeysay nimaan dugsi hoose dhigan oo dugsi sare dhigan oo dugsi aan dhigan oo dugsi dhexe dhigan baa kula jaamacadii baan joogaa wariyaa anigu day waxaan dhigtay 4 sano dugsi hoose 4 sano oo dugsi dhexe aan dhigtay waxaan dhigtay 4 sano dugsi sare 2 sano oo gurmada aan liqay 2 sano oo gurmada ardadii waxaan ku jiray anigu ducaysana wiilkayow anoo dayar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo waligay dalliciniyo dablaan kugu soo korsho qaykay wuxuu duunya yeeshay maxamuud kaala isma ragii lagu furay baan anigu ahaa haddaba Soomaad garan waxa weeyaan waxbarashada halkaas ay maraysaa Soomaad garan marka de fanku wuxuu lahaan jiray isagana fanka aan kaaga waramay xeer buu lahaan jiray guddi baa la soo marin jiray war wixii waa tusbax go'ay iminka day ilaahay baa